xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhab ah. waa qiso xambaarsan dhacdooyin ay dhandhamiyeen dhalintii u soo joogtay dharaaro badan oo qisadan lagu xusay. waa qiso ay ku kulmeen 3 hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay. waa jacayl, jihaad iyo haajiraad. waa qalinkii Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Barwaani. waa mar kaleeta iyo sheekadeennii jacayl iyo jihaad oo si taxana ah uu idinku soo tabiyo Guuleed Cabdisheekhash. qaybtii koobaad ee sheekadu waxa inoo joogtay deeqa oo ku jirta xilligii nusaacaha ee iskuulkii ay dhiganaysay ee Faarax Omar, niyaddana ku haysa Daahir oo ay ardayda iskuulka ay ka dhex baadhisay. bal haddaba aynu u gudagalno qaybtii labaad ee sheekada iyo halka ay ku dambaysay xaaladii Daahir oo ay askari ka kaxaysatay iskuulkii Gacanlibaax ee uu dhiganayay. gaarigii siday Daahir iyo 5 arday ee kale waxa uu maray wadada dheer ee hormarta jeelka weyn ee Hargeysa. abbaar markii la sii socdayna waxa gaarigiis hortaagay albaab weyn oo xadiid ah lana arki karin waxa ku jira gudaha. hase yeeshee ardaydu way garteen inay tahay xaruntii nabad sugidda Soomaaliya ee NSS-ta. albaabkii weynaa waa la furay, gaarigiina hore ayuu u galay. waxaa gudaha deerka weyn ee ku wegaarsan xarunta ka muuqday dad ay tiradoodu kor u dhaafisay 100 oo qaarkood hurdo ka tooseen, kuwa kalena weli ku jiifaan gogol dhulka u taalay. dadkani waxay isugu jireen rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeelba leh. waxaa ka dhex muuqday oday dhaqameedyo, culumo, arday, ganacsato iyo waxgarad kaleba, kuwaasi oo qaarkood goobtan u hoydeen muddo ka badan 2 toddobaad, roobka iyo dhaxantuna ku heleen bannaankaasi kadib markii ay buuxsameen qolalkii dadka lagu xidhayay. markii gaarigu joogsaday guddoomiyuhuna ka degay ayaa waxaa ku soo dhaqaaqay nin ka mid ah niman fadhiyey geed hoostii. waxaanu ku yidhi isagoo abbaariya guddoomiyihii ardayda watay, mahadiyad ayaad noo sidda. hadalkaasi muu jeclaysan ninka guddoomiyaha ahaa. waxaanu ugu jawaabay, maya miyuu joogaa xasan? maya ma joogo guddoomiye, maxaad u baahneed ayuu ku celiyey. waxaan u baahnaa inuu sawiro iyo faro iiga qaado ardaydan. ninkii ayaa ugu jawaabay, maya hadda xasan ma joogo, laakiin waa soo laabanayaa, soo deji intan ha joogaani inta uu soo laabanaya xasan. laakiin guddoomiyihii ayaa ugu jawaabay, anaa ku soo laaban doonaa marka uu yimaado. muddadii hadalku dhex marayay labada nin waxaa gaariga dhanka kale ka soo joogsatay oo u timid 6 wiil gabadh ardayda oo ku xidhnayd goobtaasi. waxaanay iska waraysteen xaaladooda. gabadhu waxay u sheegtay wiilasha in la soo xidhay maalintii dhagax tuurka Hargeysa ka dhacay oo laga joogo muddo bil iyo weliba weeg ah. halkan NSS-tana ay ku jirtay 2 toddobaad. intii horena waxaa laygu hayibay tiri xarunta militariga ee Birjeex. maalinta ardaydan loo soo xidhay waa maalinta loo haysto inay 60 arday ka maqnaayeen dugsiga. markii ay maqleen sheekada gabadhanna waxaa u sii caddaatay in arrinkoodu sii dheeraan doono, maadaama oo ay ardaydanba muddo bil ka badan u xidhan tahay maalintaa awgeed. ninkii guddoomiyaha ahaa ayaa soo koray gaarigii. waxaanu arkay gabadhii oo la sheekaysanaysa ardayda. waxaanu ka codsaday darawalkiisii inuu si degdeg ah u dhaqaaqo. markii ay ka soo baxeen xiradii NSS-ta ayuu darawalka ku wargeliyey inuu geeyo saldhigga booliska. kadibna waxa uu uga sheekeeyey ardayda ku xidhnayd xarunta NSS-ta. waxaanu u sheegay 6 arday in ardaydan la xidhay maalintii dhagax tuurka. markii uu isku dayay in la sii daayo haddii aan dembi lagu haysan, waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu askari ku dhaartay inay laabta dhagax kaga dhufatay iyadoo isla markaana kacaanka caayisay, sidaas darteedna lagu sii dayn waayey. ardaydaasi oo markii dambe lagu xukumay xadhig u dhaxeeya 15 sano ilaa 20 sano. waxaa la soo gaaray saldhiggii booliska. gaarigiina joogsaday. gudoomiyihiina waxa uu ka codsaday mid ka mid ah askartii gaariga saarnayd inuu ugu yeedho taliyaha saldhigga oo wakhtigaasi ahaa ninkii la oran jiray kabtan xile oo ka mid ahaa askartii u adeegi jirtay taliskii Siyaad Barre, dadkana dhibta weyn ku hayay. wax yar kadib wuu soo baxay kabtan xile. waxaanu u yimid gudoomiyihii iyo 6 arday oo askartu hareeraha ka fadhido. inta uu indhaha la raacay ayuu yidhi, ma kuwanaad waddaa?
guddoomiyuhuna wuxuu ugu jawaabay xasan iyo enanastii ayaan u waday waana soo waayey ee adigu miyaad ka qaadi kartaa faro iyo sawir kabtan xidhana waxa uu ugu jawaabay ka tag maanta berri ayaan ka qaadi doonaa kadibna waxaan u gudbin doonaa NSSta guddoomiyihii ayaa si xanaaq ku jirto ugu jawaabay kabtan xidhe isagoo oo ku yidhi kaaga tegi maayo dugsi baan ka soo kaxaystay saldhigana kaga tegi maaye anaa xasan maanta raadsan waxaana ku sugi doonaa xafiiskiisa waxaanu si degdeg ah ku yidhi darawalkii inagu celi xaruntii NSSta degdeg u dhaqaaqan ayaa waxaa sababay gaadhi soo ag joogsaday gaadhigan ardaydu saarnaayeen oo ay wateen odayaal u socday saldhigga booliska oo uu ka dhex buuqday allaha u naxariistay marxuun xaaji axmed ildab markii lagu soo dhowaaday xafiiskii NSSta ayuu saacadda eegay guddoomiyuhu waxaanu ku yidhi darawalka inagu celi dugsigii waxaanu ardaydii ku yidhi laba kala doorta inaan idiin gacan geliyo NSSta iyo inaad aabbayaashiin keentaan inta ka horraysa 12 duhurnimo oo saacadi ka harsan tahay faysal oo ka mid ahaa ardayda ayaa ugu jawaabay anigu ma keeni karo si xanaaq leh ayuu aamus ugu jawaabay guddoomiyuhu faysalna intaa kuma hakane waxa uu ugu jawaabay waa hore ayuu dhintay aabbahay hooyadayna magaalada ma joogto guddoomiyaha ayaa weydiiyey cidda ka mas-uulka ah waxaanu u sheegay inuu la joogo adeerkii waxaanu ku yidhi ii keen isagaba daahir iyo axmed oo xiriir fadhiyey ayaa hal mar wada gujiyey faysal iyaga oo u dan lahaa inuu aqbalo si ay uga gacan baxaan askarta isna waa fahmay waxaanu aqbalay inuu keeno adeerkii ardaydii kalena waxay aqbaleen inay keenaan aabbayaashood inkastoo aanu faysal ahayn ardayga keliya ee agoonka ah ee ku jiray ardaydan haddana waxay u aqbaleen in ay mar uun ka gacan baxaan askartan kana badbaadaan xadhigga labada jeer ee hore alle ka badbaadiyey gaadhigii ayaa la joojiyey markii uu madaxa la soo galay waddada dhex marta xaafadda loo yaqaanay Woodwood taasi oo aan ka fogeyn dugsiga ardaydu dhigato ee gacan libaax waxaanu guddoomiyuhu ku wargeliyey ardayda inaanu ka mas-uul ahayn waxa soo gaadha ardaygaan aabbihii ku keenin inta ka horraysa 12 duhurnimo mana rabo adeer iyo hooyo toona faysal ayaa si jikaara ugu jawaabay anigu waan kuu sheegay inaan keenayo adeerkay askari dhulka jooga ayuu ku amray guddoomiyuhu inuu gaadhiga ku soo celiyo faysal waxaanu u qaaday dhankaa iyo dugsiga shantii arday ee kale way wada tashadeen waxaanay ku midoobeen inaanay keenin waalidkood kana wargelin waxa maanta dhacay iyagoo ka warwarsanaa inay iyagu xadhigga ku geli doonaan ama uu lacag madax furasho ah uu kaga doonayo ninkan haysta waxbarashada gobolku daahir maalintaasi wuxuu la carraabay warwar iyo culays iluu siiyey deeqa iyo xiisihii uu xalay la carraabay hablihii uu xalay indhaha la raacayay ee uu ka dhex baadhaya deeqa waxaa u beddelay inuu dadka ka dhex baadho askari ku soo socda wakhtigaasi deeqi waxay qaadanaysaa cashirkii ugu dambeeyey ee duruustii maalintaasi waxaanay dhigaha u taagaysaa garaacista jaliska lagu amrayo in la joojiyo cashrada oo lagu kala dareero kumay guulaysan maalintaasi inay aragto ama ay la kulanto daahir oo ay jeclayd inay isku dugsi noqdaan waxaanay la carrawday iyada oo hamigii ay la soo toostay weli madaxa uga buuxo laga bilaabo wakhtigaas ay daahir iyo ardayda kale ka gacan baxeen xadhiggii maamulka waxbarashada gobolka ugu sarreeyey la beegsaday waxaa u bilaabmay dhammaantood qorshe mid waliba kaga fakirayo sidii uu uga nabadgeli lahaa halistaa soo food saartay iyaga oo filanaya in haddii aan caawa loogu iman guryahooda goor aan fogeyn lagu soo jebin doono albaabada kol haddii ay inasiyaad barre canaasiirtiisii u gacan galeen habeenkaas daahir hurdo kama ledin warwarka ka haystay arrinta soo food saartay awgeed waxaana ku dheeraaday habeenkii sidii uu kolna u kacayay kolna uu isu rogrogayay walaalkii oo ka weyn oo qolkana ay wada jiifeen ayaa weydiiyey walaal miyaad xanuunsanaysaa iyo maya hadda miyaad qayishay
daahir oo aan cunin qaadkan ayaa ugu jawaabay maya waan gami waayey isaga oo ka gaabsaday inuu uga warramo arrinta warwarka ku haysa walaalkii kuma qancin arrintaas waxaanu dareemay inaan daahir arrintiisu caadi ahayn waxaanu in yar kadib ku yidhi haddii aad xanuunsanayso de wax xanuunka jabisaan hayaaye aan ku siiyo marka waagu baryana dhakhtarka u tag daahir oo dareemay inuu walaalkii ka warwariyey ayaa uga xog warramay arrinta maanta ku dhacday waxa uu ka gami waayena tahay taasi walaalkii oo dhowr jeer la xidhay iyada oo aan waxba lagu haysan markii u dambaysana sanad bilaa xukun ah ku xidhnaa xabsiga Madheera ayaa uga xog warramay xaaladda magaaladu halka ay marayso iyo inta qof ee habeen iyo maalinba la xidho ama la dilayo waxaanu qalbiga ugu dejiyey inuu isaguba xidhnaa sanad aan waxba lagu haysan rabbina ka badbaadiyey markaa wixii la qoran kan waxbarashaduna kolley waa lacag doon arrinkaasna ganacsato iyo waxgarad badanba waxaanu isla garanay haddii aanu laaluush bixinno iyo haddii kaleba kuwii la xidhaanu nahay markaa inaanan canaasiirta siyaad barre laaluush siinin daahir waanada iyo talooyinka walaalkii dhiirigelin ayay siiyeen waxaanu adkaystay qalbiga isagoo intii waaga ka hadhina ka bogtay hurdadii deeqa oo iyadoo habeenkii sariirta ku tagtay nabad inkasta oo ay cabbaar caweeyeen maadaama oo ay ahayd habeen jimco soo gelayso shaqo iyo dugsina aanay jirin haddana markii ay jiifsatay waxaa xasuusteeda ku soo maaxay daahir oo ilaa xalayba hurdada ku cidhiidhiyey laakiin daal badan oo hayay iyo iyadoon xalay hurdada ka bogan ayaa ka tabantay hurdadiina hore ayay ka gashay subaxii markii la kaakacay deeqa waxay ka mid ahayd labada qof ee ugu horkacay guriga waxaanay dhankeeda ka bilowday hawshii guriga waxay caadiyan subaxa jimcaha ka nisan jirtay hooyadeed inay quraacda reerka diyaarso kadibna u baxda adeeg laakiin maalintaas oo ay xaafaddu macsuun u ahaayeen dad qaraabo ahi waxaa suuqa u baxday hooyadeed oo ku tidhi adigu guriga sii hagaaji markii gurigii lagu kala dareeray deeqa iyo walaasheed iyo gabadhu adeegi jirtay ayaa isugu soo hadhay hawshii gurigaanay isu qaybiyeen deeqa oo aad u xiisayn jirtay dhegaysiga heesaha ayaa shidatay heeso hawshii gurigana way bilowday deeqa waxay aad ula dhacday markay soo gashay hees ay midhaheeda ka mid ahaayeen deeqa aramidaadii waxay uurka jiifto afka aan ka dhowraba la adkaysan waaye sow aroorsan maaha heestaasi oo ay ku soo ceshatay dhowr jeer kadibna walaasheed ayaa ku tidhi ma magacaagaa ku cajibiyey naga daayo na dhaafi heestan waad naga badbadisay deeqa ayaa ugu jawaabtay iyada oo aan war isu hayn naanayaro sug meel bay taabanaysaay daahir isaga subaxii waxaa kiciyey walaalkii oo door biday inay israacaan maadaama oo aanu dugsi jirin salaaddii jimcahana soo wada tukadaan isaga oo door biday inuu ka warhayo xaaladdiisa warwarkana niyadda uga saaro markii salaaddii laga soo baxay ayaa daahir la kulmay laba ka mid ah ardaydii la wada xidhay shalay kadibna waa isxaal waraysteen waxaanay ku ballameen galabta iyo hoteelkii yuuyanka galabtaasi markii ay cadceeddii qabowday daahir wuxuu isku diyaariyey inuu u dhaadhaco suuqa oo ay ku ballansanaayeen wiilashii kale waxaanu ku maray gurigooda saaxiibkii mahad oo aanay is arkin ilaa iyo shalay waxaanay ka soo wada bixeen gurigii markii ay ku soo dhaceen waddada suuqa u dhaadhacda ayaa daahir u bilaabay sheeko mahad isaga oo uga bilaabay saaxiib miyaad og tahay waxaa shalay dhacay mahad oo goobta ay marayaan ku xasuustay gabadhii ay kula kulmeen arbacadii ayaa ugu jawaabay ma inantii ayaad aragtay
iyo waarmaye wax kaa daran ayaa kaa dambeeyey dhegayso waxaanu uga warramay sheekadii soo martay isaga iyo ardaydii kale markuu meel dhexe marinayo laguna soo dhowaaday suuqa hoose ayaa mahad salaamay gabadh ka horraysay oo ay soo gaadheen isaga oo aqoonsaday inay tahay deeqa oo ay hore ula kulmeen daahir ayaa isna gartay markay salaanta ka qaaday dibna u soo jalleecday deeqa iyo daahir labaduba waxay muujiyeen farxada ay ku lamaan tahay naxdin taasi oo ay sababtay sida ay u rabeen inay u kulmaan iyo kadisada aan midina markaa niyadda ku hayn ka kale ama aanu filayn ee ay u kulmeen iyada oo daahir ay mashquulisay sheekada uu u bilaabay mahad deeqana waxa mashquuliyey oo ay ka fikiraysay laba meelood oo ay u socotay kay ka horreyn lahayd socodkii ayaa la wadaagay sheekadana waa la isku darsaday deeqa oo ka faa'iidaysanaysa kulankan oo ay filayso inaanu ahayn mid sii dheeraanaya maadaama oo ay ku soo dhowaatay goobtii ay ka raaci lahayd baska u socda shacabka oo ay muraad u lahayd ayaa jeclaysatay inay barasho dheeraada ka hesho labada wiil gaar ahaan daahir waxaana weydiisay dugsiga ay dhigtaan waxaanay u sheegeen inay kala dhigtaan dugsiyada gacan libaax iyo maxamuud axmed cali iyana waxay u sheegtay inay dhigato dugsiga sare ee faarax cumar waxa kale oo ay weydiisay maadaama ay xaafadda wada degan yihiin inay jiraan hablo ay la dhasheen iyadoo u raacisay kulliba xaawalida istaqaane daahir waxaa la dhashay laba gabdhood oo aad u yaryar laakiin mahad ayaa waxaa la dhalatay gabadh uu hal sano ka weyn yahay iskuna dugsi yihiin deeqa aad ayay ugu faraxday deeqi maqalka ay maqashay fahiima oo ay aad isku yaqaanaan inay walaala yihiin mahad waxaanad moodaysay inay baastay imtixaan adag oo u dhigmaa kan form 4-ka waxaanay u ahayd guul ay soo hoysay maadaama oo ay baratay cid ay kala xidhiidhi karto labada wiil oo aanay markii hore dhan ay u qaado iyo cid ay ugu hagaagtaa toona jirin waxaanay si kaftana ugu tiri haddaa laydin heli karayaa haddii laydin waayo daahir oo kaftan runa isaguna kaga faa'iidaysanaya fursaddan ayaa raacsaday haddaba adiga sidee lagu helayaa haddii lagu baahdo annagan heshaya waxaana si kaftana ay ugu tidhi waxaad ku soo biiri doontaan qolooyinka wakhtiyada rawaxaadda is-hortaaga dugsiga faarax cumar markay halkaa sheeka marayso ayaa laba gabdhood ka hor yimaadeen waanay salaameen deeqa waxaanay kaliftay inay isku taagto gabdhaha halkaana isku nabadgeliyeen wiilashii iyo deeqa kuma raagin gabdhihii wiilashiina way tageen laakiin waxay ku qanacsanayd warbixinta ay maanta heshay oo ay ugu muhiimsanayd fahiimo oo ay aad isku yaqaanaan inay walaala yihiin mahad iyo ogaanshaha dugsiga uu dhigto daahir oo ay dhigato saaxiibadeed leyla daahir oo xiisaha deeqa ka khafiifay xaaladii kale ee soo martay awgeed ayaa laftigiisu u riyaaqay kulanka labaad ee ay kulmeen isla markaana u arkayay inay iskaga soo dhowaadeen intii hore maadaama oo laysku weydaarsaday barasho dheeraad ah haddii laysu baahdana la heli karo dariiqooyin kale oo loo mari karo wakhtigaasina may jirin adeegyada u fududeeya dhallinyarada wakhtigan xidhiidhka sida moobilka teleefanka iimailka facebooka iyo wixii la mida kuwaasi oo ah hadda waxyaabaha ugu horreeya ee la isweydaarsado marka laysbarto si toosana loogu wada xidhiidho marka laysku baahdo wakhtigaasi waxay ahayd in marka la kulmo ballan la kala dhigto oo haddii la iswaayo ama duruufo ku soo kordhaan labada qof midkood goobta ballanta taagnaan jiray ilamaa iyo inta uu ka qancayo taasina waxay sababi jirtay in cadho la isku qaado isaga oo qofka u arkayay in loo jaray mararka qaarkoodna ay adkayd sida dib loogu kulmo ama looga soo kabto duruufaha ay wateen isgaadhsiin la'aantu saaxib daahir waxaan filayaa inay indhaha iyo dhaguhuba dhankaaga u jeedaan sida sheekadu u laba dhacaysay iyo dareenka labadiinaba idinka muuqday waxaan ku sifayn karaa xiise xaddaaf ah oo soo ifbaxaya kaasi oo u muuqda u fakalka cayn oo idin wada haysa taasi waa aragtidayda inkastoo xiisuhu jiray laba habeen haddana xawaare xoog leh ayuu ku socdaa mar kalena waynu ka wada sheekaysan
mahad ayaa saaxiibkii dulmar uga dhigay kadibna waxaa la soo galay hudheelkii yuyanka oo daahir uu kula balansanaa labadii arday ee uu kula kulmay salaadii jimcaha. la soco qaybta saddexaad ee sheekadan jacayl iyo jihaad.